xafladan waa mid lagu soo dhaweynayay ciidamo tababar ku soo qaatay dalka Djibouti oo lagu qabtay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaan ka qayb galay maamulka gobolka kan degmada saraakiisha ciidamada qalabka sida aad u fara badan munaasabadan ayaa waxa uu wareen ka hadlay taliyaha ciidanka booliska degmada Beledweyne Qoreen Cali Dhuux Mahadale waxaana uu sheegay in tababarkan wax weyn ku badali doono howlaha ciidanka booliska magaalada Beledweyne booliisku marka wuxuu leeyahay kaalin isaga u gaar ah oo shaqadaas uu ku dhaxlay marka in booliiskii degmada Beledweyne oo diyaar yahay inuu dib ugu howlgalo shaqooyinkiisa hay ugana hortago dhagarta ay maleegayaan kooxaha nabadiidka ayaa maanta xafladan la isugu yimid ay ahayd sidaas daraadeed ciidanka booliiska Soomaaliyeed degmada Beledweyne intii shaqo ku maqan saacada ma intii kala tawaad aragtaa waxay diyaar u yihiin inay shaqadoodii qabsadaan waxay diyaar u yihiin inay nabadii ka shaqeeyaan sidoo kale waxa ka hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Qoreen Isaaq Cali Cabdi waxaana uu sheegay in ciidanku ay diyaar u yihiin inay shacabkooda u shaqeeyaan Korneyl Ismaan Dubad taliyaha ciidanka AMISOM oo ka hadlaya waxa uu sheegay in mar walba ay garab taagan yihiin ciidanka dawladda ee gobolka Hiiraan hambaliyo waxa yeelay 3 sano wada joognaa muddo ku dhow runtii sida ay u shaqeynayaan ay u dadaalayaan ay u halgamayaan ay u dhimanayaan ay u dhaawacmayaan ayaan rabaa inaan ugu hambaliyeeyo oo iraado hambaliyo hadalkii murtida ahaa ee Carays Ciise ningooba gobannimana galad loo siin maayee inuu ruuxa u gadiyo geeridu saw lama gudbana waxaad u dadaalaysaa waxaad u dhimanaysaa waxaad u dhaawacmaysaa waa dalkaagii weey gudoomiyaha degmada Beledweyne Macalin Ismaan Qalaafo ayaa dhankiisa ka hadlay isagoona ballan qaaday inay caawinayaan ciidanka booliska ee magaalada Beledweyne haddii intaan ay hub haysala waxaan isleenahay ammaanka degmada Beledweyne ayaga baa ku filnaanay military iyo qaybaha kale waxay ku filihiin xuduudada iyo wixii loogu talagalay kor rajada weyn oo Ilaahay ka leenahay waxay tahay in mar dhow codsigan dacwada Ilaahay u dirsanayno in mar dhow rajadiina iyo sabarkiina Ilaahay si degdeg oo gacanteena ku soo sameeyay wax u baahantiin oo dhamaanteed ugu dambeyntii waxa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga Maxamed Ibrahim iyo kusimaha gudoomiyaha gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cusmaan Cali waxa sharaf weyn inoo ah inaan idin kala soo qayb galno xafladan aad u quruxda badan leh ee walaalaheen AMISOM ay qabteen oo ah dareeska isbeddelsi ciidamada booliska waxay idin tahay dhiirigelin aad u weyn anagana aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama intaan aan qaban wayno ee walaalaheen noo qabteen waxaan leenahay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin iyo hoona in la garab istaagna anagana waa mudannahay ayagana sidaas oo kale sideen oo ballan qaadeen in la garab istaagaan meel walba ay nala gali karaan ay nala galaan iyo ciidamada kale iyo waxyaabihii kale looga baahnay annaga waxaan idin fiirinaynaa idinkaan idin hor joognaa idinkaan idin daba soconaa waxaan leeyahay waxaad qabateen waa ka mahad celini bulshada ka mahad celisay waxaa ka mahad celiyay ciidamada ka mahad celiyay waxaa ka mahad celiyay maamulka heer gobol iyo heer degmo ilaa haddana idinkay mas'uuliyad idin saarantahay leenahay Ibrahim Maxamed Geedi warbaahinta qaranka Beledweyne